السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أربعة حسابتين خارجة وخصوصا وهذا عشان كشناد إن كنت ديارني إنه هبك الله ديار صدق إكسل رسالة مانجمنت إنه مركز استعمالنا إكسل. وهي وحنوصل معي مثل 1 2 يوم ترم وحنكون دنبي هاينا ديارنا إن ريبورت عن ديارنا كلية وحقوس عضري وفيديو وورقة مقن نقشة وحركة بدلي وسبيس على العوير سكي وعادة أدوى سميسن كرتا ما أنتو حاربنا إنا كنا نحبحنو لابد كولوم وأفريج كإيو جرين كان دوي لا ينكر على نقطة أفريج قاعد وفضل دي هاي عشكور أو سي بودن جنايا مرك كوبات سنك أنا قلتين أفريج كسميس دول تجد دونتا haddii aan kuu soo dhaweeyo markaad u darto kadib waxaad dhihi doontaa equal kadibna waxaad dhihi doontaa average caadi u qori doontaa waatan intuu kuu soo qabtay sida kaaga muuqata kadib markuu average saa kugu soo qabto wuxuu rabaa inaad qiimo ah ku shubto markaa ilaa dhowr cafwan equal markaan dhahno average aan dhahno waxaa sameynaynaa zoomka iska qaadaynaa waxaa soo qabanaya tarbiyada kasoo bilaabi doonaa waa soo wadaa ilaa ugu dambeyn teknolojiyada aan ka imaanayo totalka waa ka reebayaa marka inta haysta kadib bishii ayaan ku xiri doonaa hadda intaan haddii aan ku daayo averageka saxda ah wuu isiinayaa waa isla arki doonaa haddii aan imika inter yiraahdo oo kale 32.41 qofkaas keenay dabcan jajabkaa ku badan halkana laga yareeyaa jajabkana waa arkaysaa 42 markaa noqonaysaa hadda haddii ay yiraahdo calaamada boqolleyda si islaamka kaaga muuqata waatan meeshaas boqolleyda haddii aan siiyo tiradu isbedeli doontaa sa arkaysid 3242 noqotay marka taas si looga baaqdo waxaa sameynaynaa laba jeer halkan guji ama waxaa imaan kartaa meeshan marka halkaa imaan kadib waxaa dhehaysaa waxa u qaybinaysaa waa qaybiska waxaase ku sameynaysaa maxaa la yirahdaa qoysooyinka gadaal waaye loo qaybiyo 100 markaa dhehaysaa ina arkiisa ila tahay 100 markaa haduu qaybiyo haddii aan inter iraahdo waa arkaysaa sodii la wada sideeda kusoo laabatay haddii arabsina dhibci yareeraa waa soo ceshan kartaa waayahay averageka intaas waa kaga bixi karnaa qaab kaloo loo sameeyana wuu jiraa averageka haddii aan isku dayno kan oo kale naga dileed waxaa sameynaynaa equal ayaan dhahaynaa midkan totalka ayaa waxa u qaybin doonaa tarbiyada kasoo bilaabo ilaa teknolojiyada waa 12 maado 12 maado ayaan u qaybinaynaa markaa inta markaa iraahdo wuxuu siinayaa 32.41 iyo waxaas jajabka ku badan sa arkaysid haddii aan sameeyo hadda inaan boqolley ka dhigo sida halkan kaaga muuqata haddii aan percentage ka taabto kadib waxay noqonaysaa 3200 sida daadso kale marka waxaa sameynaynaa ilaa 100 u qaybinaynaa waxaan leenahay oo loo sii qaybiyey 100 hadda haddii aan inter iraahdo way isixi doontaa dabcan waa kaas 32 ardaygaas kastaa diyaar jajabka halkan loogu soo dirsadaa halkan ayaad sameynaysaa inaad jajabka ay kaga soo dirsatid waa kaas oo kusoo galaysaa waayahay ardayda kale muhiim ah inaad qaacido u samaysid keliya tiora ku sameynaysaa in aad timaado xagasha geeska hoose inaad timaado markaa hargeys ku noqdo karsarkaaga inaad soo jiitid ama inaad laba dar klikaasid waxaa inoo haray gradeka soo sameynaya gradeka waxaa lagu xiraa inta badan if ayaa lagu xiraa markaas isticmaali doonaa condition waxaa ka dhigan doonaa averagekeena haddii ardayga uu ku hooseeyo 25% maadaama 40 lagu saxaayo waxay noqonaysaa ardaygaas inuu dhacay haddii 20 uu ka sarmarana ardayga uu baasay keliya maxaa sameynaynaa selka aramtid aad marka waad dultagaysaa waxaa dhihi doontaa equal markaad tiraadid dabcan waan dheer maadaama aan qorayno inta ku sameynaynaa sida saxda laakiin formula barkana gey waa meesha saxda ay waxa ugu qoro si aan zoom ugu sameysan markaa waxaan ka hormarinaynaa if oo markaa shardi ah ku xiran doono if markaa soo qabsan kadib waxayna weydiinaysaa logical test maxaad tijaabinaysaa waxaad tijaabinaynaa ardaygan averagekiisa ayaan tijaabinaynaa ardaygan averagekiisa salkura wuu ku jiri karaa muhiim ah salka inaad soo gujisid waaye ardaygaasi averagekiisa oo kan ah haddii maxaa la yidhaahdaa uu ka hoos maro 0.2 waxa keenayo waa fahmi doonaa insha Allah hadda xasuusin average markaa sameynaynin marka percentage-ka aan ku darnay waxaa sameynaa 100 u qaybina soo ma jajab waa marka meeshaas waxaan leenahay marka haddii average-ka ardayga uu ka hooseeyo
0.2 maxaa dhacayo waxaan dhahaynaa ardaygaasi value of true noo soo bixi doona waxaa nooga dhigtaa wuu haray ka dhig waa gartay hakadhe haddana oo saa ugu gudubno shardiga kale idan marka maxaan niri haddii ardaygan averagekiisa oo r columnkaas r 13 nooc doona noqon karaa r ku jira haddii uu ka yaryahay 0.2 caadi u qori kartaa 0.2 na uu soo go'an kartaa 0.2 hadduu ka yaryahay yacni 20% ah 0.2 waxaa laga wadaa 20% haddii uu ka yaryahay ardaygaasi waa 20% sababta ugu xireen waa maxay ardayda imtixaanka 40 lagu saxayaa midtermka totalka aan sida lagu soo saaray 40 uu ku eegyahay 10 oo imtixaanka koowaad biladka koowaad 10 imtixaan biladka labaad iyo midtermka 40 isku noqonay maadaama ardayga 40 loo qiyaas qaadanayo ardayga dhacay waa inuusan ardayga dhacay waa inuu ku hooseeya 20 waa inuu ku hooseeya idan marka boqolkiiba 20 imaanaysa soo ma idan marka waxaa laga rabaa inaad tiraahdo ardaygan haddii maxaa la yidhahdaa averagekiisa uu ku hooseeyo 0.2 oo boqolkiiba 20 ah ardaygaasi wuu haray hakadhe marka ardaygaas haddii uu intaa ka sareeya kadibna waxaan usoo daawaceynaa gudbay usoo daawaceynaa insha allah gudbay usoo daawaceynaa waayahay bisha usoo xireynaa iga fogey waa arkaysaa inta qaacidada si caadi noogu qoran tahay haddii inta naftirkeeda kusoo dhaweyno waxaa leenahay shardiga ku xirnay haddii ardaygan averagekiisan oo 40 boqolkiiba laga rabay haddii uu ka hoos maro boqolkiiba 20 haddii uu ka hoos maro ardaygaasi waa uu haray boqolkiiba 20 0.2 oo dhigantaa boqol ina fahmi karta ila tahay haddii intaa been ay noqotana ardayga boqolkiiba 20 uu ka kormaray gudbay noqonaysaa meesha hadda calaamad weyn ah ka dhigtid meeshan boqolkiiba 20 sideeda u ahaanay labada meel kala bedeli doontaa bis hadda haddii inta iraado ila fiiriya waxa inoo soo baxa ardayga wuu gudbay maadaama boqolkiiba 20 uu ka sareeyo 32 haystaa idan marka noocaas kusoo baxaysaa jawaabteena saxda ah hadda haddii aan sameeyo kuwa kale muhiim ah in ardayda uu soo qoro kaliya waxaa sameynaya qaacidada koowaad ee waxaa ku sameynaya double click ayaan siinaya ama oo kusoo jiidaya intaasoo kaliya waaye aad u mahadsantihiin maanta systemka intaasoo noogu egaa wixii su-aalihii jawaab sabtaana waa idinkaga jawaabi doonaa live inoo qaban doonaa insha allah hadduu ilaaha jiraalo noqdo maalinta arbacada ugu dambeysa khamiista oo galayso waana soo shaacayn doonaa meesha isku diiwaangelinaya sida linkiga aan kugu soo darno whatsappka nagala soo xiriiri leed iyo waxaas oo dhan aad u mahadsantihiin insha allah soo dhawaada asxaabteena